asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waa cambaabur podcast waa fadhigii shanaad oo idinkaga imanaya Philips Foundation waxay idin daadihinayaan aniga oo Cabdullaahi Raagi caawana wax mar labaad martiin uga Cumar Cali Baashe oo aan ka wareysanayna qaybtii hore barnaamijka hadda idin la soo socoteen waa fadhiga afraad ee cambaabur podcast xadaasada iyo waxay tahay sida ay u curatay oo aan soo dulmarnay dhamaanteed 500 sano oo isbedel taariikheed oo kala leh falsafad iyo fikir bulsho iyo siyaasad iyo nidaam dhaqaale iyo sidoo kale teknolojiyada science balan ku soo qaadaa dhignay hadda waxaan u noqonaynaa qaybteedii labaad ee barnaamijkan ama mowduucan oo ah xadaasada kadib ama ma bacda alxadaatha postmodernism waxaan arrinkan ka wareysanaynaa horena kii hore uga soo wareysanay Cumar Cali Baashe oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed kuna takhasusay dhaqaalaha iyo horumarinta dhaqaalaha sidoo kale la darsa cilmiyada bulshada ee kala duwan waxna ka qoraa dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ee mujtamaca Soomaaliyeed Cumar ku soo dhaw mar labaad cambaabur podcast iyo dhageystayaasheeda aad u mahadsantihiin waan dhawahay Cabdullaahi Raagi sayidka waxaana filayaa hadda inaan ku gudubnay qaybtii labaad si fiican qaybta labaad ama aan u gudbayno waxaan ku soo gabagabeynay qaybtii hore xadaasada markaad soo qaada dhigtay waxaad sheegtay in ay xadaasadu dhashay dhowr cudur ama natiijooyin togan ama natiijooyin taban oo ka dhashay xadaasada oo ah gumaysiga iyo adoonsiga iyo sidoo kale dagaaladii waaweynaa ee soo maray dunida oo dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad halkaas ayay ka bilaabantaa ama ka bilaabmi kartaa dooda ama niqaashka ma bacda alxadaathiga sidee ay xadaasada ma bacda alxadaathiga fikradaas ku dhalatay ama mashruuca falsafadeed waxaan dhaho sidoo ku curtay muxuu yahay aan kala qaadno labada su'aal curashada iyo maaragtay inaan ogaano wuxuu yahay haddaan ka bilaawno curashada ka bilaawno iyadoo faahfaahsan u tegi doonaa laakiin si kooban xadaasadu qarnigii 20aad markii la yimid nuskii hore qarnigii 20aad adduunka waxaa ka dhacay dhacdooyin aad u weyn oo waliba ay ka mid tahay labadii dagaaloo hore dagaalka koowaad adduunka dagaalka labaad oo ay xigtay maaragtay waliba dagaalka labaad adduunka intii lagu guda jiray bambaanooyinkii waaweynaaye lagu dhuftay Hiroshima iyo Nagasaki Mareykanka ku dhuftay malaayiin dad inay ku dhinteen maaragtay siyaasadii horumarinta ee Sooviyeedka iyo China waxaan la dhahay soo baxeen waxaan la dhahay Holocaustiga dadkii Yahuudda ahaayee maaragtay ku noolaa Jarmalka iyo Yurubta maaragtay bari Yurubta Jarmalka ku qabsada oo lagu sameeyay xasuuq waxyaabahaas marka la isku daray ayaa waxaa soo baxay niman oo falaasife iyo iskugu jiray iyo maaragtay macallimiin oo politicalka iyo siyaasadda iyo sociologiga ka dhigo oo ka duulayo dhahayo oo xadaasadu waxyaabahay ballan qaaday oo ay ka mid ahayd insaanka inuu yahay centerka koonka inuu yahay oo qiimaha uu naftiisa si gaar ah qiimo u leeyahay oo qiimihiisa wax kale ka helayn way fashilantay insaanku qiimuhu wuxuu ka helaa waxyaabuhu soo saaro iyo dabaqadu yahay sidii marka runta la fiiriyo daatadiisa kama helo ahaanshihiisa kama hele wuxuu ka helaa waxyaabaha uu sameeyo ama meeluhu ka tirsan yahay hadday noqonayso dabaqad iyo hadday noqonayso dhaqaalaha soo saar nafti bini'aadankana lama tixgelinno waxaaba soo cusbaanaatay xasuuq iyo maaragtay iyo halkaas marka waxaa fashilantay wax la dhihi jiray nadariyaadka humanismka ballanqaadkii humanismka meesha ka baxday waxaa kala soo baxay waxay dhaheen xadaasadu waxay ballan qaaday nabadgelyo iyo dowlad wanaag iyo waxaasay ballan qaaday laakiin ma dhicino qowmiyaadka istiriray waxaa soo baxay mashaariic irrational ah mashaariic aan caqli ku dhisteen oo ay ka mid tahay mashruucii naaziga iyo mashruucii maaragtay fashistiga ahaa marka waxay leeyihiin
caqlaaniyadiina ya way burburtay oo u tegi doonaa falsafadii qaabka u doodayaan ilaa caqlaaniyadiina xaggaas ku burburtay oo qowmiyaadkii waxa la dhaho way sii kala burbureen waxaa soo baxay waxa la dhaho sub identity fiican oo sidii hore la iskuma haysto waxaa kaloo iyadana meesha ka baxday waxaan la dhihi jiray ballanqaadyadii waaweynaa waxa la dhihi jiray meta narratives ama carabi lagu dhaho asardiyaat alkubra oo ahayd yani ilbaxnimada yani taqadumka horusocod taariikhda adduunka in ay si taqadumiye ah oo horumare hore loo socdo wax ma dhic oo waxa la dhaho maaragtay taqadumiye hore loo socdo ma jira dheheen sayniskiina waxay dhaheen waxyaabihii xataa haddii la geliyey empiricismkii iyo maaragtay objectivekii jaribkii waxay dhaheen kuma filno oo waxaa jira interpretation la dhaho fasiraad fasiraadda ayaa ka weyn inta badan maaragtay tajrubada oo waxay leeyihiin waxaa la dhaho subjectiga objectiga oo qofka scientistiga ama qofka researcherka ah subjectigiisa inta badan saameyn ku yeesho objectiga yani qofkii ayaa saameyn ku yeelanayo aqoontii soo baxaysa aqoontii samaynayo xataa markay sayniska marka waxay leeyihiin bataatanba xadaasada nataa'ijteeda way fashilantay marka waxaa lagu jiraa xaalad la dhaho postmodernity xaaladda postmodernity la dhaho horta ereyga waxaa labada ereyba xadaasada iyo post iyo xadaasada kadibba waa erey laga keenay waaye architectureka handisada waliba midda oo dhismaha oo dhismayaasha xadaasada ee yurubtii hore qaabka ugu dhisanta waa qaabka xadaasada la dhaho laakiin qaab dambe waxaa soo baxa postmodernity la dhaho dhismooyin oo waxyaabo yar oo si qurux badan laakiin isku dhex jiro aanan more complicated ah kii hore halku ka ahaa shay waxyaabo qayaxan oo afar gees saddex gees kan laakiin waxyaabo isku jiro ismooyin isku dhex jiro oo aad oo iskugu dhex jiro maaragtay marka dhismahan xaggaas ka yimid ereyga social science-ka aamuska social science-ka wuxuu galay sanadka 1997 nin faylasuuf oo Francis oo la dhaho magaciisa la dhaho Jean François Lyotard ayaa ereyga buug qoray ku qeexay oo ku daraaseeyey oo la dhaho xaaladda postmodernity buugka sadaa xaggaas marka wuxuu galay sayniska anihe social science aamuskeedu galay marka haddii aan hore usii socono marka xadaasadu hadda kasoo sheekeyna hadda maxay tahay marka waxay ka kooban tahay sidee ay maaragtay si dhan kale aan idhaahday waxaan ka soo warranay soo curatay oo kooban maxay ka kooban tahay iyo doodu maxay keliyihiin ayaa inoo taalla imika haddii aan qaabkii oo hore aan kusii socno postmodernitygu falsafad ahaan waxay ku taagan tahay in la critical gareeyo falsafadii maaragtay xadaasada naqdigaasi ku taagan tahay yaa la naqdinayaa marka laba group waa nimankii enlightenmentiga ahaa nimankii tanwiirka ee caqlaaniyadda xoogga saaray nimankii misaaliyiinta ahaa ya oo akhlaaqda iyo maaragtay iyo bulshada xoogga saaray ay hogaaminayaan Kant iyo Hegel si fiican yaa marka iyaga hoggaanka u haya marka naqdiga nimankaas naqdiga akhlaaqda waxaa hoggaanka u haya ninka la dhaho Nietzsche si fiican Friedrich Nietzsche oo Jarmal ah Nietzsche wuxuu xidadaha u siiyey nadariyaadkii akhlaaqda ahaa ee maaragtay xadaasada wuxuu yidhi akhlaaqda waa labo akhlaaqda maaragtay dadka siyaadada lahoo oo xoogga badan iyo akhlaaqda cabiidka doonta waa labadaas marka waa akhlaaqda adag iyo akhlaaqda in laga adag yahay bis wuxuu marka uu aad u naqdiyey
qaabkii u samaysan tahay taariikhda falsafada ee reer galbeedka oo uu leeyahay waa taariikh dhimatay oo aanan lahayn ma aragtay nuxur marka waa in nuxurka loo celiyo waa in la isticmaalo awoodihii la isticmaalo bini aadamkan uu noqdo waxaan dhaho superman oo laga gudbo dee falsafaadkii humanismka iyo falsafaadkii neecda iyo baryada ku dhisneed in laga gudbo si fiican marka Nietzsche doodiisa waa intaas xooggeeda dooda kale oo muhiimka waxay tahay xadaasada waxay ku taagneed waxa la dhaho rational caqlaaniya ku taagneed nimankii postmodernityga ahaa dood waxay geliyeen maxaa la dhahaa caqlaaniyada horta si fiican maskaxda bini aadamku ama maanka sidiisa ma u yahay mid u fikeri karo oo objective ma yahay yani dooda marka waxay noqotay maskaxda objective ma ahan idhin ee maskaxda wixii galo unbay ka fikirtaa yani maankaaga wixii maaragtay masaadir ay macluumo ay hesho ay ku fikirtaa keliya laakiin iyadu ma aha mashiin wax sameeya ayada mashiin ma ahan masdarna uma noqon karto aqoonta ama garashada uma noqon karto meel laga soo sababtoo ah ayadu shaqada keliya ay qabato wixii macluumaadkii gala ayay kala safaysaa oo ay ku fikirtaa tartiibisa si maqashnooba intuu cuno ciidamiyaa maskax walba intay gasho ay ku fikirtaa si fiican dooda oo marka halkaas waxay ay xirfaha u qaadeen doodaas markii hoggaan u haya doodaas waxay ka timid falsafad kama imaan doodaas waxay ka timaadeen psychology si fiican oo waxaa hoggaan u ah ninkii maaragtay Sigmund Freud wuxuu yidhi dadka riyadooda iyo mashaakishooda nafsiga ah waxay ka imaadeen waxa la dhaho subconscious marka waxay tahay waa tajribadii noloshaada aa soo martay oo markaa yareed ilaa maanta waxyaabihii oo maskaxdaada galayay oo pressureka ahaa ama ahaa ma aragtay waxyaabihii aad qarinaysay ama waxyaabihii aad dadka qarinaysay iyo cabsidaadii iyo walwalkaagii iyo ma aragtay shakhsiyadda ay samaysantaba waxay iskugu tagaan meel dhaho subconscious ma aha mida aad maamushay laakiin xaqiiq ahaan consciouskaada waxaa saameyn weyn ku leh conscious waa wacyiga waa garashada yani ama garashada ama garaadka soo jeeda iyo garaad soo jeeda iyo garaadka aan maaragtay aan soo jeedin laakiin shaqeeya si fiican marka wuxuu leeyahay garaadkaasi qofka ma maamuli karo laakiin isagay maamulaysaa oo waxyaabo badan oo qofkan ka soo yeerayo ama uu samaynayo ma ahan wax uu hadda garaadkiisa soo jeedo uu fahmayay ee wax subconscious ku jiro ka imanaya halkaas marka waxaa burburtay wixii la aaminsanaya caqlaaniyadda aadamku waa insaan caqli badan oo si caqli badan rational oo xisaabsan oo dadkan leeyahay si rational ah u dhaqmaan rational uma dhaqmayaan waa dad oo maaragtay qaab iyaga loo diyaariyay u dhaqmayaan مثلا dhaqaalaha dhaho rational consumption wax dhow ma jiro dadkan xayasiiska iyo maaragtay iyo discountiga iyo si fiican loogu fahmo yani rational consumption so ma aha inuu qofku markuu wax iibsanayo baahidiisu ka fikiraa wuxuu hayo ka fikiraa si garaad leh oo xisaabsan oo duruuftiisa iyo danihiisa ay wax ku iibsadaa cagsiga waxa weeyaan meesha wax loo iibsado waxa duday xayasiiska iyo discountiyada iyo waxyaabaha lagu soo hormarinayo waxa dib marinayo iyo waxa jira marka wax loo misleading English lagu dhaho in la lumiyo in la marhabaabiyo soo go'aamo khaldan u qaato marka waxaad dareemaysaa marka wax oo qofkan ku dhisan yahay waa marhabaabin oo siyaasadka marhabaabinta waa marka ninkaaga odayga ma xisaabtamay sida shaamboga uu ku sawiranta iska iibsanaysaa oo weliba dee subconscious galo dhowr mar aad ka aragtay xaysiisyo iyo oo TV ama ka daawata aan banaanka aan ku aragtay waxyaabahaas marka waxay xadidayaan marka go'aamada qofka uu qaadanayo ma ahan go'aamo rational oo sideeda marka halkaas waxa uu Freud uu sameeyay inuu dhibada maaragtay u siibay
wixii la dhihi jiray rational iyo caqlaaniyadii marka xadaarada bini aadamka wuxuu kuma dhisnay rational irrational ahayd iyo waxyaabo oo fardigana qofka waxa saameyn weyn ku leh noloshiisii iyo intuu noolaa jiribku soo maray khibradiisii tajribadii uu soo maray experience waxa uu ayaa marka xadidayo halkaas marka waxa ku dhamaatay doodii weyneeda maaragtay caqlaaniyada marka hore akhlaaqda la soo buriyay saddexaad oo muhiimka ah marka waa mashaariicdii weyneeda maaragtay nadariyaadkii iyo sardiyaadkooda lagu dhisay ee kow ka tahay akhrinta taariikhda bini'aadamka waxay aaminsantahay xadaasadu taariikhda bini'aadamka inay u socoto qaab fiican oo la dhaho linear خط يعني خط toosan meel ka bilaabanayso soo taraya meel ku dhamaanayso meel hoose ka soo bilaabay meel sare u socda horu marayana oo waliba la dhaho nadariyadan YouTube la dhaho in oo meel fiican lagu dambeyn doono ya waa sidii orahdii ahayd waa la doogayaa la dacaroon si fiican marka ay waxay leeyihiin lama doogayo ya oo la dacaroon in la dacaroon suuragal waxa laga yaabaa in la dacaroodo kadib la doogo aadiya waxa laga yaabaa haddana in la dacaroodo oo aan la doogin marka waxay leeyihiin taariikhdu ma ahan khad kuma socoto ma jirtana hal taariikh oo isku wada mid ma jiro okay oo xaggaas waxaa ka baxay marka akhrintii taariikhda markuu ma aha khad qaloob waxay leeyihiin taariikhyo u gaar ah taariikh ma kala duwan tahay waa taariikhyo kale meel looma socoto marka xagga waxaa ka baxay waxaan dhahay determinism حتمية إنه حق أيه واحد لجانجو يعني واساس يعني هل كاس لا تيجي ولا تيجي تاريخه حتمية مرحن جانجوين قعن أو لهوبو يا مجرته فعلا أنت كلا أيضا ماشي كأب حدا وحتى هاي أن سامينتا قفك وكل يلنا يو أن أركتيا أوكي waxaan la dhaho objectivism markuu aqoonta dhalinay aqoonta ku sameynay objectivism waxa la dhaho si aan intaan ugu khalkhalin subject iyo object ka aan kala cadeyn yar kala saarno si kala noqon karaan مثلا حتى أنا موضوع هذا هينو وحداثتي iyo حداثتي kadib waa object waa wax aan daraasaynayno waa object kaaga daraasaynayso يا واحد دراسيني سبجكتي أمريكا أنا يا سبجكتي أمريكا مركا علمي جو كلمة مثلا قفك في سكستيا ما درا دراسيني هذين قلت ما عرفتي يونيفرسيتي دراسيني يونيفرسيتي ما عرفتي دقها واحد يا و object وحده درسيه لكن ريسيرشركي أو فيزيكستها علم باريها و subject فعلا هذا إيمان علمي برشدة وقفك ما عرفت social scientistية برشدة وحقتها هي object يقطع فعلا ودراسينه السجن وحويها هو subject هل كاس مشكلة في جرتنا فعلا برشدة objective كأهات أيوة سجن كتيرسية هل كان ممكن حد عادي subject object اسكو مليمت ayaa waayo isku sheeno waayo waxa daraasinay qofkiina waa human bulshadiina waa human marka laba subject iyo object gaas dhex galay ayuu ku xaleeyihiin wax objectivity laho ya ma jiro qof walba waxa saameyn ku leh soo sheegnay tajribadiisii iimaankiisa aragtidiisii ayaa qofka iyo adduun aragiisa ayaa waxay saameyn ku yeelanaysaa knowledge production fiican marka cilmi qayaxan oo qallalan ma jiro oo sidiisa xaqiiq ah marka aragtidaas waxa hogaamiyo niman laba qolo laba madrasa dhahe madrasada dhaho furfurida tafkiikiya si fiican ya Allah deconstruction deconstruction ka madrasadaas waxa ayadana oo xidig weyn ka ah Jack Derrida oo filosof Faransiis ah si fiican niman kale eegan waxa jira eegan
afkaartaas oo iyagan isticmaalay oo Michel Foucault uu yahay waxaan ku arki doonaa qaybta political sociology ku arkan fikrad ka baxno oo la post structuralism si fiican oo qaybtan baa ku arki doonaa marka iyagu xidigo waxay ka yihiin marka waa akhlaaqdii rationalkii akhlaaqdii iyo caqligii iyo ma aragtay epistemology ama cilmi soo saaridii saddexdaba waxay ku naqdiyeen marka naqdi culus ba ku dhacay naqdi culus oo waliba laga naqdinayo originka yani asalka ama xidaha laga naqdinayo si fiican marka mar haddii mataqaanaa xadaasadii ballanqaadyadeedii iyo natiijadeedii la naqdiyey sidoo kale mawaadiicda ku dhisnayd ama arrimaha ku dhisnayd laga naqdiyo waliba saddexda imika aad soo faahfaahisay oo ah rationality caqlaaniyadii iyo maxaan ku idhahda akhlaaqdii oo akhlaaq sayid iyo akhlaaq lacabid lagu naqdiyey akhlaaqdii humanismka iyo insaaniyada sidoo kalena furfurid ama deconstruction narrativeski waaweynaa ama sardiyaadkii waaweynaa narrative sheeko noqon karta yani isaan soo dhaweyno yani wax fasir معين ballanqaad laga bixiyo ama taariikh fasir معين si wax loo isla haysata wax loo fasiro ama mashaariicda waaweyn ay ku dhisan yihiin intaas oo dhaxdii la soo naqdiyay qaybahaas qaybta sociology ama bulshada oo maxaan ku dhahdaa iyaguna yani san hore soo sheegnay kulankii hore aan ka soo sheekeynay xadaasadu waxyaabo ku dhisnayd ama isbedelada halkay ka samaysay ka mid ahayd naqdi nooceeya ay ma bacda alxadaasa ku samaysay ما بعد الحداثة مركي بوست مودرنيتيغا بلشة أهان سوسيولوجيا أو لغوسي داري بوليتيكالكا وحيابها كل قد يحدثوها كم كو حداثو وحي كنت أغني ذا حلا ورشدينت سيفا ورشدينت وأنا قد بيه وحالة حالة أو لأنه ماس برودكشن ماس برودكشن وحاواي in shirkad weyn soo saarto oo waxyaabadeeda trillions si baan wax loo soo saaro aad loo saaro waayo waxaa ku xiran dhinaca kale waxa la mass consumption iibsi ballaaran iyo wax soo saar ballaaran yani halkaas markuu yaa fududeeyay marka waxaa fududeeyay marka waxaa la dhaho teknolojiyada marka halkaas waxaa ka dhashay bulsho cusub marka fiican oo bulshadii warshadaynta kala guurtay bulshada oo ka soo guurtay dhammaan marka daqiiqaadkii iyo dhaqaalaha iyo sociology-ga ee ku dhisnaa dabaqaadkii iyo daraasaynii iyo maaragtay iyo wax soo saarkii waxay leeyihiin marka hadda macno ma laha ma fasiri karaan bulshadan mass productionka mass consumptionka ah si fiican ma fasiri karaan saa daraadeed marka bulshooyinka waxaa kusoo biiray leeyihiin waxa la dhaho new identities ama sub identities soo biiray haybo cusub ama haybo cusub kusoo biiray ama ahaanshiyo cusub ahaanshiyaha cusub maxaa ka mid ah marka ahaanshiyaha cusub waxaa ka mid ah markii qowmiyaadkii fashilmeen oo dagaalka labada adduunka ay dowladihii hogaaminayay irrational projectiga ee naaziga iyo ahaa waxaa xoogeystay marka waxyaaba la dhahay sub identities waxaa ka mid ah marka inay soo baxaan bulshooyinka la dhaho LGBT-ga oo maaragtay haybaha cusub ee jinsiga ah oo loo yaqaano LGBT oo lesbian bio gay LG samaha H waa lesbian G waa gay B waa bisexual T waa transgender marka qaarna balas lagu sii daro iyo wixii la halmaado ahaanshiyahaasa soo baxday waxay xoog yeelatay marka 1968 Faransiiska waxaa ka dhacay waxay la dhahayay kacdoonkii ardayda oo diidanaa ma aragtay siyaasaadkii dowladda iyo qaabka loo maareynayay bulshada iyo dhaqaalaha marka waxaa burbura marka waxa la dhahayo qowmiyad ishaysato waxaa soo baxay marka hawiyaad ama ahaanshiyo oo kala go'an LGBT-gaas uu ka mid yahay ay ka mid yihiin black movement dad madow oo waxaa ka mid ah marka iyadana hawiyaadkii maaragtay feminismka ahaa dumarka iyo maaragtay diimahii ayagana sii yeesheen oo maaragtay sii kala yeesha identiyo
وكحلي وحافظ فرنت ايدنتسكي هايبتي اللي سكو قبني مجتمع قومية فرنسيس أما قومية المر ما مدرك مركا هذا أيا وسيف الفرنتي وحاجر تمركا ايدنتي ال جي بي تي ايدنتي بلاك ايدنتي فيمينيزم ايدنتي وحاجر مركا او ديمها فعلا halkaas marka bulshada noocaas ahayd ayaa ayadana waxa sii xoogeystay waxa la dhahay dhaqankii maartay kelinimada ama individualism qofka xaq isaga wuxuu u yeeshay ya inuusan qolaba ka tirsanaan keli socod keligiis inuu ahaado oo kelinimadii ay xoogeysatay oo qofkii marka uu isaga uu noqdo qof keligiis meel degan keligiisa ma aragtay oo keligii nool keligii shaqaysta keligii saa daraadeed markii doodaas waxaa hogaaminaya marka niman la dhaho post structuralism post structuralism waxay kaga duwan tahay nadariyaadka oo sociologiga waxay leeyihiin bulshadu structure kaliya ma aha in bulshada la dhaho qaab dhismeedka bulshadani waa مثلا Soomaalida la dhaho waa reero waxay leeyihiin saas ma ahan waa waxyaabo badan qaab dhismeed fara badan oo kala duwan ayaa bulshada samayso مثلا reer ama dabaqado waa diin waa dabaqad waa sub identities waa waxa waaye masaalix waa waxyaabo kala duwan ayaa bulshada samayso marka nimanka marka taariikhda waxay ku akhriyaan nadariyada la dhaho genealogia nadariyada genealogia ama manhajyada genealogiyada waa genealogy macnaheedu waxa waaye waa waxaan la dhaho family history sida loo isticmaalo luqadaas oo history laakiin ay waxay u isticmaaleen in la taariikhiyo afkaarta kow in la taariikhiyo mafaahiimta مثلا مفهوم كان عقاب توكل قفل عقابه ايش شيء مؤسسات كلها تاريخيه حبس قرمو بلعب قرمي اسبتال بلعب ايضا نختار لماذا جوركا مؤسسات جوركا طبعا فاميليا waxyaabahaas yaryar maaragtay in la taariikhiyo la baaro ay xoogeysatay waagi hore waxa la baari jiray marka wadanka dawladda civilizationka laakiin waxaa bilaabatay marka waalidoo kale hadda meesha fog kitaab wuxuu leeyahay laho the history of madness waalida in maaragtay taariikhda waalida ahaa la daraaseeyo waalida in la daraaseeyo kaag wuxuu leeyahay banishment ciqaabta iyo maaragtay iyo mu'assasaadka wax ciqaaba ayaan taariikhdooda sidoo kale afkaartana la taariikhayo nimankaas marka asalkooda waxaa waaye marka in wax xaqiiqo la haysan jirin wax xaqiiqo hal xaqiiqo oo meel mutaxan oo meel taagan inaysan jirin ay jirto xaqaa'iq kala duwan ay muhiim tahay in la baaro midalba goonigeeda loo baaro madaaris badanaa ka dhashay waxaa ka madrasada ka dhalatay nimanka la dhaho post colonial studies ayaa ka dhalatay oo saameyn weyn ayaa waxay ku leedahay post colonial saameyn weyn waxay ku leedahay sheeg waxaan la dhaho daraasaadkan oo hindida ay sameeyeen oo sababtan studies ay kamid tahay marka waa muhiim marka siyaasadda markii laga hadlo taas waa sociology cilmiga bulshada siyaasadda markii laga hadlo dowladdii oo ishaysatay weyneed ayaa la furfuray marka si fiican oo la dhahay dowladdu waxay khatar ku tahay jiritaanka bulshada dowladdiis oo waagii hore la tixgelin jiray ma aragta oo iyadoo wax walba waxay noqotay mid khatar ku ah jiritaanka bulshada iyadoo la furfurayo qaabkii u samaysa bulshada iyadoo lagu sameynayo deconstruction lagu sameeyey ta kalena lagu sameeyey waxaa waaye ereygii sekularka calmaaniyadii marka waxay noqotay marka calmaaniyadda waxay noqotay in
dowladdu ayada ay diinta samayso marka hore waxay ahayd xadaasadii iyo waagii hore diinta dowladda la kala saaro laakiin bacd alxadaas diinta lagama dhex saari karo dowladda ama diinta bulshada lagama dhex saari karo marka dowladda ayaa waxay samaysay waxyaabaha ay ku doodahaan dowladda ayaa samaysay diinta yani ballanqaadkii ahaa in dowladdu diinta ka madax banaanaato ama diintu dowladda ka madax banaanaato ma dhicin dowladdiyaa diinta samaysay dowladda diintii liqday markii ay mu'asasaadkii diinta ay la wareegtay marka dowladdii ayaa waxay noqotay marka minister oo ama wax maaragtay waxshi oo diinta sameeyey oo bulshada sameeyey oo dhaqaalaha oo xulba waa mid ta kale marka ay ku doodaan waxay tahay waxaa xoogeysatay waxaa la dhaho siyaasaadka biologiga yani siyaasada biologiga maxaa la dhahaa biopolitical dowladda ayaa waxay la wareegaysaa dhimashadaada iyo noloshaada oo iyada ayaa la soconayso qofka dhintay qofka caafimaad qabo qofkaan caafimaad qabin qofka ay tahay ma aragtay in oo laga dhex saaro bulshada cudurrada in laga ilaaliyo bulshada waxa hadda socdo ma aragtay epidemiga iyo pandemiga iyo covid-19 iyo biopoliticalka marka in cuduradii iyo ma aragtay iyo caafimaadkiiba oo siyaasadda qayb ka mid oo noqdo ee dowladda ay maamusho waxay leeyihiin marka adduunkii waxaa ka dhaca marka waa la isku furmay sidii hore ma ah oo immigrationkiya bati qodobkaa hore kale haddaan si yar faahfaahino qodobada si fiican dadku fahmi karaan inay taan filaya ino xadaasadu waxay abuurtay xadaasada ka hor dadku iyagaas waday xadaasadu waxay abuurtay in dowladdu jirkaaga mas-uul ka noqoto yani si kale haddaan u dhigno yani hadalkaaga aan kusii daba daro in dowladdu go-aan ka gaarsiya caafimaad qaba iyo xanuunsanaya horta maxaa loo ogolyahay qofka xanuunsan inuu yani مثلا قف كارانتين lagu sameeyo laga xirayo hatta sucuraadka sonkorta intee healthiya marka yani inuu dawladdu dejiso siyaasadka la dagaalanka مثلا hilibka iyo burnida iyo wax noocaas ubadka waalidku marka hore ubadka isagu uu ahaa moogta sharciyada ugu dambeysay in la yiraahdo مثلا lagala wareego sababtoo ah caafimaadkiisa dadka qaarkood qabaan in laga saaro ama la ogolaa inay soo galaan yani sida ay dawladdu ula wareegtay nolosha dadka tusaalahaas moogta ayaa aad u fasiray ku soo marka waxaa ka xoogaysta marka siyaasad la dhaho homo sacer oo dadka qaxoontiga ah dadka darbijiifka ah dadkaas in laga saaro ma aragtay qaamuuska dowladda dowladda dadka kala tacaamulinba ee u arkaan dad ka baxsan sijilaadka dowladda oo lagama qaado canshuur lagamana warhayo dowladdana iska ilaalisaa oo dadka qaxoontiga waa loo diidaa inay soo galaan haddii soo galaan meelaa lagu xiraa dadkan kaloo darbijiifkii waa la aruuriyaa meelaa lagu xiraa yani marka siyaasaadka noocaasi waxay leeyihiin waa siyaasad la dhihi karo nuxurkii bini'aadankana meesha ka baxayba oo bini'aadan cusub oo la dhaho alinsaan alakhiir xadaatada ay samaysay yani dooda nimankan post modernityga kasoo shidaal qaadanaysa Nietzsche waxaa la dhaho alinsaan alakhiir ayay samaysay saa daraadeed marka waxa meesha ka baxayn waxay leeyihiin mashruuci caqlaaniga la sheegay ka baxay awoodda waxaa xadido waa siyaasadda waxaa xadido awoodda dhahan oo weliba waxaa la dhaho international relationshipka waxaa qaabeeyey waa dowladaha kale u kala awood badan yihiin halkaas waxaa uga baxaynaa marka modernismkii siyaasadda haddaan cilmiga u imaano sayniska sayniska post modernityga horta waa mid xooggiisa uu saaran yahay laba ah waa xiriirka teknolojiyadda iyo sayniska iyo physics-ka iyo labadaas asaas u ah waxaa soo xigo medical modern medical oo ka duulayo marka aragtidii darwin ee asalka insaanka the original of species marka
waxay leeyihiin ayaga insaanku postmodernity oo sayniskeeda waxay ku doodayaan insaanku ma ahan noole ka duwan nooleyaasha kale wax mid ka duwan maaha wuxuu ka yahay qayb wuxuu ka yahay isbebedelkii iyo samaysankii nooleyaasha xalaqaadkoodii waa xalaqa ka mid insaanka aragtidan la dhaho waxaa waaye homo sapiens waxay leeyihiin insaankan hadda jiro sayniskooda oo weliba qaybta biologiga ee ka duuleysa the origin of species ee Darwin insaankan hadda jiro anaga naqaano taagan waa mid qaab kala duwan soo maray oo xaaladan hadda uu yahay homo sapienska waa xaalad dambe uu soo samaystay waxay leeyihiin marka insaanka wuxuu ka bilaabmay hal cell hal khaliyo cell ka bilaabmay cellkaas ayaa marka wuxuu sameeyay evolution marka bedelay uu noqday bini'aadamkan hadda la yaqaano caqliga leh saa daraadeed marka insaanku wax qudsiyo iyo wax ma aragtay uu kaga duwan yahay xayawaanka ma jiro karaamo gooni ma lahan halkaas waxay sameeyeen marka insaanka waxay ka leexiyeen marka inuu isboqoray oo ka dhigay uu insaanku yahay xayawaanka oo caqliga leh ma aragtay ugu fiican meesha way ka leexiyeen saa daraadeed marka waxaa samaysmay xiriir xoog badan teknolojiyadda iyo sayniska isdhex gale waxaa ka soo baxay marka waxaa la dhaho in jiinaadkii maaragtay la engineer garayo dib jiinaadka loo engineer garayn karo masalan qofka inuu jiinaadkiisa la daweyn karo hadduu jiinkaaga oo cuduro ku jireen in cuduradaasi laga saari karo la safeyn karo qofka si maaragtay hodhowtoole wax kaa farcamaya ay noqdaan kuwa caafimaad qabo weliba in la handaseeyo qaabka aad u rabtid in loo samayn karo waa wax sayniska iyo markii teknolojiyada isla tegeen ka dhalatay waxaa ka dhashay waxaa la dhaha robotiska oo droniska ay ka mid yihiin robodadan kaloo caadiga ay ka mid yihiin oo weliba dooda falsafada inaad dhehayso insaanku wuxuu halis ku jiraaba in uu maaragtay uu shaqo waayo uu ka baxaba taariikhda haddii robotskan maaragtay wax ka khaldamaan hirgalaan si fiican waxaa kale ka dhashay waxaa la dhaho artificial intelligence waxaa waaye maskaxda insaanka in lagu sameeyo maaragtay in la computerize gareeyo maskaxda bini'aadamka si loo computerize gareynaa matalan awoodda maskaxeedu insaanka uu leeyahay iyo awoodda robotska la isku daraa halkaas marka waxaa ka soo baxayso wax oo robot genius sida insaanka oo kale oo la gaari doono marka xaalad oo suuragal ay noqon karto sida ka sheekaan culimada oo artificial intelligence xaalad oo robots intelligence ay noqonayso oo soo baxay ka caqli badan ba insaanka taasoo marka oo kombiyuutarada iyo ma aragtay iyo in suuradda caqliga bini'aadamka aan la computeris gareeyo ayaa waxaa ka dhalatay marka in hadda maaragtay kombiyuutaro waaweyn adduunka shaqooyin badan lagu soo koobi karo artificial intelligence 500 qof waxay qaban karto in waqti kooban lagu qabto taasoo marka dad qaarkood ay ka digaan ay dhahaan waxaaba halis in maaragta jiritaanka bini'aadamkaba inay halis ku tahay iyo waxaa la dhaho quantum physics oo weliba oo qarnigii 20aad soo xoogeysatay oo lagu dareesay timeka iyo maaragtay iyo futureka iyo spaceka iyo lagu dareesay weliba la dhaho wuxuu revolution uu ku yahay maaragtay isheeg aragtiyihii physics-ka Newton waxaa burburisay Einstein nisbiyada Einstein marka waxaa burburisay marka quantum physics ayaa burburisay haddaba markaan kusoo koobno marka teknolojiyada sayniska waxaa la dhaho medical modern medical oo marka oo waxaa la dhaho
khalaaya jidciyada waxaa la dhaho oo khalaayaadkaasoo la rabo in biniaadanka dib in lagu samayn karaba lagu dhex beero biniaadanka khalayaad inta la helo selkan inta la helo in suuragal ay noqonaysaba qofkan oo in hadda gacan kaa go'doo kale in gacan kuu samaysanto gacan lagu samayn karo iyadoo unugaaga la isticmaalayo oo weliba dad qaarkood ay ku doodaan xataa dhimashada xataa maaragtay in oo xal laga gaari doono siday ay ku doonayaan maaragtay halkaas marka waxaa xoogeysatay marka nimanka la dhaho scientology-ga nimanka cilmiwiyiinta la dhaho oo aaminsan cilmiga wax walba inuu xal u yahay cilmiga qura wax walba xal u yahay isku soo koob sayniska iyo teknolojiyada ayaa wuxuu sameeyey revolution aad u xoog badan markii waxaa ku dooda nimankan boston modernity-ga ah bulshada sayniska in ay hadda eega ay hogaaminayaan developmentiga adduunka laakiin more oo maaragtay in badan waxshiye ka ah cilmigii hore waayo cilmigan waxay dhahaan wuxuu banaanka usoo saaray monsterka ama waxshiyadii insaanka uu banaanka usoo saaray wuxuu burburiyey environmentigii wuxuu burburiyey insaankii wuxuu halis ku yahayna jiritaanka insaanka marka laga hadlayo nuclearka iyo maaragtay iyo hubkan la abuuray masixi kara artificial intelligence-ga iyo waxyaabahaas oo dhan intaas marka waxaa waaye waxay ka kooban tahay sayniskii siyaasadii sociologigii ilaa falsafadii waxaasoo naqdiya waxa ku dhacaya xadaasadii aan kaga soo warramnay maxaan ku dhahdaa kulankii hore waxaan jecelahay inaan halkaa kusoo gabagabayno labada kulan oo 2 saac waqti ku dhow qaatay ugana mahadcelino Cumar Cali Baashe faahfaahinta ballaaran iyo waqtiga uu geliyay diyaarinta barnaamijkan xadaasada iyo waxay tahay sida curatay iyo sidoo kale ma bacda xadaasada ama postmodernism-ka iyo waxay tahay sida curatay iyo doodaha dhinacyada kala duwan ee falsafada iyo sayniska iyo bulshada iyo sidoo kale maxaan ku dhahay teknolojiyada iyo wixii la xiriiro oo dhan waxaan ku soo koobnay kulankan kii ka horeeyay iyo kan oo laba isku xiga Cambabar podcast number 5 iyo Cambabar podcast number 4 iyo number 5 oo kan ugu dambeeyay inta aan mar kale ku kulmi doono mowduuc kale iyo doodo kale oo Cambabar podcast idin soo gudbiso waa Cabdullaahi Raage oo kulankan idin ka soo daadihinaya Muqdisho 29 Abriil 2020 halkaas ayaan idinkaga tegaynaa waxaan idinku codsanaynaa qof kasta oo aad isleedahay uu danaynaya barnaamijkan ama wax uu taraya in aad la wadaagto sidoo kalena aad haygaaga iyo taladaada iyo wixii naqdi aad noo hayso aad noo soo mariso xarumaha aad ka dhegaysanayso podcastkan haddii uu yahay YouTube oo aad cod ahaan uga dhegaysanayso haddii uu yahay Google podcast maxaan ku dhahay Apple podcast iyo meel kasta oo kale oo podcastyada laga dhegaysto dadkana bar oo na gaarsii adiguna nala tali oo nagu soo warceli wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh